أنا waxaan qabaa imika in dawladdu inay dhacday oo siiba oo aad la ii dhacay oo maxay heetoy airportka wasiirka duulisiyaha hawada aan wax allaala wuxuu ii qabtay aanay jirin lay hoosaasiyay anagu waxaan uga fadhinaa wasiirka duulisiyaha hawada oo waliba musalsal ugu soo daynayna $42,000 haddaad u keeni weyday daday way kasta miidiyadan ku fadhiisanayna sababtoo ay tahay dayacaadu adigay ka timi wasiir gaal la xaday sidee loo yiraahdaa baasaboorkiisu waa Yurubiyan oo lama qaban karaayo sidee loo yiraahdaa tuugu sita sidee loo qaban kari waaya haddaan arrin laga shawray aanu ahayn waranba lacagteedii keena ama nimankiyo ka tiradaysan keena wax kale ma jirto la iskuma hadlay karo imika sidee nin cabaaba inta soo degay 12 saacadood iska fadhiyay flight Dubai la iskuma hadlay kare dib ha loogu noqdo madaarka dib ha loogu noqdo waxa weeyaan aniga waa lay dhacay waxay dhacay niman gaala ah ayaa dukaankayga iigu yimid hadday ii yimaadeen oo i dhaceen markii aan ogaaday dahabkaygii inuu dhacan yahay waan cararay waxaan tagay CID-dii warqad way siin waayeen waan ka tagay waxaan tagay maxay heetoy xagga booliiskina waxba warqad waa la siin waayay waan cararay haddana waxaan qabtay airportkii haddaan qabtay wasiirka duulista iyo hawada ayaa waxa la igu yiri waa lagu soo dhicinayaa xoolahaagii nimankii ayaa la soo qabanayaa gaalada ahaa waxay joogaan imika Dubai bay ku sugan yihiin waa la soo qabanayaa Hargeysa lagu soo celinaya waayahay waxay yiraahdeen haddana habeenimadii annaga hadlayna arrinkani waa arrin dawladu yaala marka iska sug annaga hadlayna soona qabanayna waxa lala hadlayaa safiirka jooga Dubai inoo jooga kaasaa soo qabanaya iska sug baa la igu yiri waxaan ku yiri warqad ha la siiyo oo jananka bileysku hay siiyo warqad waxa la yiri warqada lagu siin maayo arrinkaasi waa arrin dawladu yaala dawlad buu u yaala arrinkaasi dawladahana wada hadlaya marka nimanka in lagu soo jeebeeyo ayuun baanu annagu aanu qabanayna arrinkiisa kawdii duhurnimo ayaan airportka qabtay ilaa kawdii habeennimana transit bay ku ahaayeen nimankuna Georgian bay ahaayeen marka waxaan ku yiri ha la ii soo qabta nimanka ama xoolahaygii ha la iiga soo qaado dabadeeto anigu waxaan qabaa imika in dawladdu inay dhacday oo siiba oo aad la ii dhacay oo maxay heetoy airportka wasiirka duulisiyaha hawada aan wax allaala wuxuu ii qabtay aanay jirin lay hoosaasiyay oo la yiri xaqaagii waa lagu soo dhicinayaa nimankii waa la soo qabanayaa dawladaha wada hadlaaya waxaan ku yiri dadkaygii baa igu sugaya Dubai oo jooga warqad baa la iga doonayaa la iigu soo qabto nimankan warqad gaashaandhiga ah hal la isiiyo marka warqadii waa la ii diido waxa la yiri waa arrin dawladu yaala marka waxaan leeyahay madaxweynaha anigu ka hadli maayo madaxweynuhu waxa weeye waa madaxweynahayagii habase yeeshee waxa weeye aniga dadkii aad u igmatay madaxweyne shaqada ee aad tiri wax u qabta dadka masaakiinta waxa weeye wax allaala wax naloo qabtay ma jirto tuugana lagu soo daayay oo gaala ah oo macnahoodaba aan la fahmaynin ayaan naxaday waana silsilad wada socota baan anigu qabaa madaxweyne in hoos la ii eego ayaan doonayaa oo arrinkayga aan dhulka la dhigine sare loo qaado hoos la eego wadanka anigu cashuur baan ka bixiyaa cashuurta aan bixiyo
dahabkayga aan haysto cashuur baan ka bixiyaa markuu Dubai qabanayo cashuur baan bixiyaa marka la keenayana cashuur baan bixiyaa ama Sankabuur ha ka yimaado ama Dubai ha ka yimaado ama Turkiya ha ka yimaado ama Imaaraadka ha ka yimaado meeshuu doono dahabku ha nooga yimaado cashuur baanu bixinaa guriga aanu ku jirno cashuur baanu ka bixinaa dawladda gabar ma aanu siinaa marka madaxweyne inaydaan hoos noo eegin ee sare naloo eego oo xuquuqdayada naloo soo dhiciyo oo gaalada nalooga soo dhiciyo baanu annagu xaq u leenahay waxa weeye dahabka intaa la eg ee 340 garaam ay iga qaadeen maxaa la oran waayay halkee laga keenay cashuurtii meeday rasiidhadii ku soo qaadateen meeyay riboodka sidoo uga bixi karaa dahabkaasi kaayaduba fargal loogama soo bixi karo riboodka aan laga cashuurin marka farsamada uu u baxay ee uu u tagay dahabkaygii ee hadaan laga shaqaynaynin oo aanay silsilad ahayn waa in la iiga sheekeeyo madaxweyne waa inaad hoos u eegto arrinkayga dadka aad u igmatay shaqada waa inaad adigu hoos u eegtaa waayo dad masaakiin loo shaqaynaya inaad hoos u eegtood ka dhiido ayaad xaq u leedahay annagu wadanka waa kaanu u dhalanay gaalna xaday sidee loo yiraahdaa baasaboorkiisu waa Yurubiyan oo lama qaban karaayo sidee loo yiraahdaa tuugu sita sidee loo qaban kari waaya hadaan arrinkani arrin laga shawray aanu ahayn waxa weeye madaxweyne waa inaad arrinkayaga hoos u eegtaa oo aad eegtaa dhibaatada nagu dhacday 42,000 oo dollar ayay nimankaasi iga dhaceen marka waxa weeye kamana taaglihi waa in xaqayga la soo dhiciyaa oo la eegaa haddii kale dawladdu haysiisa xuquuqdayda aniga magacii Somaliland baa la igu dhacay madaxweyne adaan ku garab socday intaas oo dhan oo aanu ku dooranayni waa inaad hoos noo eegtaa sidii anagu markii lagu dooranayay aanu hoos kuugu eegaynay inaad adna noo eegtaa baanu doonaynaa inaad noo soo qabato gaalada xuquuqdayada dhacday haddii kale dawladdan ka hoos fadhiyaa waa in la siiyo xuquuqdayda oo dawladdu isiisto haddii kale waxa weeye daana gaalada magaalada joogtaan soo qabsan madax furasho aanu qabsan sidaa ku ogow madaxweyne ila soo hadal ii kaala macallimad iskuul baan ahaa anigu markii hore macallimad iskuul baan ahaa imikana waaniga dahablayda noqday waxa weeye dalka in badan baan u soo shaqeeyay tuugtaasi ay dhacday islaantaas dadaya ilbiriqsigiiba way ogaatay cidda dhacday dawladda ayay u timi waxay ka codsatay nimanka iyadoo wada aqoonsigooda in loo qabto riboodkay tibi waxa lagu yiri riboodka Fly Dubai bay raaceen marka warbixintii iyada bixisay anigu waxaan la yaabanahay oon weydiinayaa bulshada Somaliland iyo wasiirka duulista hawada iyo halwadeennada riboodka sidee baa nin intuu ajaanabi dalka u yimaado ugu dhici karaa inuu muwaadin dalka ku dhaco taasi waa qodob midda labaad sidee baa intuu u soo galo riboodka iyadoon cidi wadin oon cidi hagayn oon shabakad isku xidhan ahayn sidee buu kalsooni intuu u dhaco uu riboodka dahabka ugala bixi karaa 340 garaam oo dahab intuu nin cadaan dhaco sidee buu riboodka uga duuli karaa haddaan lala shaqaynin haddaan shabakadi la shaqaynin waryaanahan xiniyo barka kugu jira ma waa kala gula garab taagay shabakadu waxa weeyaan waa dad Soomaaliya oo nimanka cad waday ninku halkuu ku soo degay riboodka yaa ka soo qaaday yaa keenay yaa casuumay hodelkeebu degay intaaba waxaan ka rabnaa wasiirka duulista hawada iyo immigration ka rabnaa nimankan cidii keentay iyo halkay ku degeen talabaad waxaan la yaabanahay nimanka cadaanka xabad caday hadii riboodka laga degay waa la cashuuraa nimanka cadaanka sideeba iyagoo dahabka inta leegsita loo weydiin waayay warqad loo weydiin waayay halkii ka soo iibsadeen haddaan lala shaqaynin sideeba ula bixi karaan anagu waxaan uga fadhinaa wasiirka duulista hawada oo waliba musalsal ugu soo daynaynaa
$42 kun haddaad u keeni weyday eedaday way kasta miidiyadan ku fadhiisanayna sababtooy tahay dayacaadu adigay ka timi wasiir sababtooy tahay markay sida xoolaheedu ogaatay nimanka falay dubay kawdii duurnimo raacay ee kawdii habeenimo ka baxay falay dubay airportka dubay aad tiraahdeen warqadii loogu xidhila ganacsatadii dubay oo dhan baa taagnayd airportka oo doonaysa inay nimanka xidho warqada u qori weydeen oo odhanaysa nimanka lagu soo celiyo nimankaasi security reasons ayay dambi bay galeenaha lagu soo celiyay airportka haddaydan la shaqaynayn sidee bay ganacsatadii dubay u hortaagnayd airportka ilaa kawdii habeenimo inta duulayaan sidee bay nimankaasi u odhan weydeen islaanta warqad ugu qori weydeen sidee baa ugu soo qaban weydeen laba qodob baa meesha taagan oo wasiirka haysata nimanka u soo qaban weyday ee aad iyagoo ka tiinadaysan airportka uga soo deji weyday aad u keeni weyday sidee baa ganacsatada warqad ugu qori weydeen airportka dubay ka dhex xidhilayd ee dubay ka ashkatay leyd sidee buu ninku intuu 12 saacadood uu taraasi dubay ku ahaado uu markii dambana jeejni uga degi karaa haddaydan la shaqaynayn taasi waa taa wasiirka duulista hawada waxa la iska soo bixi waad awoodaa 42 kun haddaad bixi weydana maalin walba idaacadda raadiyo Hargeysa ka dhageysa hadaba taasi waa taa wasiirka duulista madaxweynaha qarankana mid baan leeyahay madaxweyne dadkan aad shaqada u igmatay ee shaqada u dhiibtay haddaanay shaqadooda ka soo baxayn 2,000 oo qof oo shaqada qaban kara oo bilaa camal dalka joogada shaqada u dhiib madaxweynihii Masar ee la oran jiray Maxamed Morris wuxuu la dhintay dawladdiisa lahana qaadi weyday madaxweynaha Masar waxay ahayd markii uu dalka qabsaday 2 qaybood ayuu ka dhigay boqolkiiba markuu dalka qabsaday boqolkiiba 50 dawladdii hore u daayay boqolkiiba 50 wuxuu siiyay dadkii uu isaga la shaqeynaya xamaasadsanaa sidaas ku guuleysan waay laba mid madaxweyne samee dadka aad u dhiibtay xilalka ee dawladdii hore ka jooga u daaxilka waxa tala war la idin daynaya si fiican u shaqeeya oo amniga suga haddii kalena ka qaado dad kale oo shaqaysanaya u dhiib sidee baa islaanita loo dhaco waliba 12 saacadood loo hoosaasiya madaxweyne waxyaalaha qaar baa ceeba oo sharaf